بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa cutubka koowaad ee barashada daawada amaba pharmacology cashirkiisii labaad. waxaan hore usoo sheegnay in pharmacology loo qeybiyo laba laamood oo waaweyn oo kala ah pharmacokinetics iyo pharmacodynamics. Pharmacokinetics-ka hore aan ugu soo hadalnay. haddii aan dib isku xusuusino waxaan ku qeexnay waxa ay ka hadasho pharmacokinetics-ka. waxaan ku sheegnay in ay ka hadasho daawada markay jirka soo gasho qaabka ugu dhaqdhaqaaqo jirka daawada. balse maanta waxaan ka hadli doonaa pharmacodynamics-ka. Pharmacodynamics-ka waxa uu ka hadlaa waxa ay daawadu ku sameyso jirka noolaha, waxyeelo ama waxtar. sidoo kale pharmacodynamics-ka waxa kale oo uu ka hadlaa falgal kiimikeed oo jirka ka dhaca marka daawada la qaato iyo meelaha ay daawadu tagayso iyo qaabka ay wax u qabanayso. xaaladda markaas taagan ee daawada loo qaatay ayay ka hadlaysaa pharmacodynamics-ka. sidoo kale waxaa jiro waxyaabo saameyn ku yeelan karo awoodda iyo waxtarka daawada. waxaana kamid ah da-da qofka. tusaale, qof 6 sano ka yar daawo loo soo qoray haddii uu isticmaalo qof 20 sano ka weyn waxba uma tareyso. waxay kamid tahay marka waxyaabaha oo awoodda daawada ay ku yeelan karto. sidoo kale kuurada daawada la qaatay dooskoo kale cunug yar loogu talagalay hal xab kaniin inuu isticmaalo qof weyn hadduu isticmaalo waxba kuma tareyso maxaa yeelay da-daas looguma talagalin. sidoo kale daawada in daawo kale lala qaato waxaa arkaysaa dadka qaar ay wareerayaan ayagoo isbitaal tageen daawo loo soo qoraa, haddana isbitaal kale ay tagayaan daawo loo soo qoraa. marka waxaa muhiim ah in dhakhtarka aad la socodsiisid in marka horeba daawo aad isticmaaleysay. dhakhtarka asaa yaqaan soo isku waafajinaya labadaas daawo in laisla isticmaalo ama midda adiga markaas aad daaynaysid. laakiin muhiim waa inaa dhakhtarka u sheegtid in daawo hore aad u qaadanaysay. sidoo kale jinsiga qofkan saameyn way ku yeelan kartaa, male ama female. waxaa jira daawooyin oo dumarka kaliya gaar u ah aysan ragga qaadan karin, iyo sidoo kale ragga wax gaar u ah aysan dumarka qaadan karin. soo marka waa sidaas. sidoo kale la qabsiga jirka ee daawada. jirka daawada hadday la qabsato kalena ayadana saameyn ay kugu yeelan kartaa. maxaa yeelay daawada jirka way baratay. haddii markasta aad daawo isticmaaleysid waxaa arkaysaa dadka qaar inay isticmaalayaan oo kale adi 3 xabo camal in la isticmaalo meel hal xabo la rabo in la isticmaalo. sax madaxa tusaale madax xanuun oo kale daawada u isticmaaleyso kale daawadaas iska badi. sidoo kale jirkaaga marka dambe way la qabsanaysaa. xaalad marka waxaa imaanayso adigii xanuunsan tahay daawada hadaa isticmaashaan aysan waxba kuu tareen. maxaa yeelay daawada jirka way la qabsatay, ayadana saameyn ay ku yeelan kartaa. maanta cashirkeena halkaas uu ku egyahay. wamaasantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aan ku salin xabiibkeena. allahuma salli wasallim calaa nabiyina